magaalada Laascaanood ayaa la soo gaarsiiyay deeq raashin oo ay ku deeqday dowladda Sacuudiga gaar ahaan hay'adda gargaarka ee caawinta shacabka Soomaaliyeed. Deeqdan ayaa waxaa lagu wareejiyay guddida taakulaynta abaaraha iyo waxqabadka ee gobolka Sool, iyadoo ay ku wareejiyeen maamulka gobolka Sool iyo ka degmada. iyadoo raashinkani lagu wareejinayo duleedka magaalada Laascaanood ayaa halkaasi waxaa ka hadlay mas'uuliyiintii ka socday hay'adda gargaarka ee caawinta shacabka Soomaaliyeed ee laga leeyahay waddanka Sacuudi Arabiya, waxayna ka sheekeeyeen raashinkani cidda ay ugu talagaleen. maanta waxaa farxad weyn inoo ah inaan halkan aan ku wareejino maamulka gobolka Sool gudoomiye ku-xigeenka Cabdirashiid Xirsi Dalmar iyo xoghayihiisa, sidoo kale guddiga xoghayaha dowladda hoose iyo sidoo kale guddiga taakulaynta iyo arrimaha samafalka oo gudoomiye u yahay Sheekh Axmed Salebaan. dhammaan waxaan maanta aan ku faraxsanahay inaan ku wareejino gargaarkii loogu talagalay dadweynaha ama shacabka degan gobolka Sool. raashinkaas oo tiradiisa ay gaarayso 2,000 oo qoys. geesta kale halkaasi waxaa si weyn uga mahadceliyey hay'adda laga leeyahay waddanka Sacuudiga ee taakulaynta shacabka Soomaaliyeed ee dhanka gargaarka Sheekh Axmed Maxamed Salebaan guddida oo ah gudoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha iyo isku dubaridka gargaarka yimaada gobolka Sool. halkan lagu soo gaaray kaalmo ay wadaan walaalaha ka socda الحملة الوطنية السعودية لإغاثة الشعب الصومال وهيئة gargaarka kaalmaynta dadka Soomaaliyeed. kaalmadaas oo lagu talagalay gobolka Sool dadka dhibaatooyinku ay ka soo gaareen colaadihii dambe koonfurta magaalada Laascaanood, colaadihii u dambeeyay ka dhacay iyo agoomaha loogu talagalay magaalada Laascaanood ayaa insha Allah taala aan maanta halka kaga gudoomo. sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Sool Cabdirashiid Dalmar iyo xogayaha dowladda hoose degmada Laascaanood Cabdi Khayr Radiir, iyagoo si weyn ugu mahadceliyay cid kasta oo ka qayb qaadatay deeqdaas in la soo gaarsiiyo gudaha magaalada Laascaanood. soo dhaweynaa ka maamul ahaan wax kasta oo wanaaga oo ummadan loo wado oo samafal ha noqoto ama ha noqoto mataqaanaa dad islaax wada ha noqotee. marka labaad waxaanu hambalyo u diranaa cid kastoo qayb ka qaadatay si deeqdan u iman lahayd degmada ama gobolka. waxaanu mar labaad u mahadnaqanaa alle ka sukow cidda soo bixisay hay'addan islaamiga ee Sacuudiga. waxaan rajaynaynaa biidmillaahi kariim in lagu daydo oo ay ku daydaan weliba ciddaan waa la hadlayaa waa shacabka degmada Laascaanood inay ku daydaan si wax loo bixiyo. waad aragtaan raashinka inaga dambeeya hal uu ka yimi waad maqlasaan iyo inta inoo jirto. marka idinkuna dib waxa rabaa inaad ku dayataano jeebkiina iyo maalka Ilaahay siinta hortaan aad qayb kaga qaadataan wanaaga iyo wax kasta magaalada ka socda. marka ugu horeysa marka xiga waxaan u mahadcelinayaa hay'adda Sacuudiga ee ku deeqday raashinkan manaafacaadka badan leh, tayada badan leh ee ugu deeqday dadkii ay dagaalada iyo colaaduhu barakiciyeen ee koonfurta gobolka Sool agoomaha. aad baan ugu mahadnaqayaa. waxaan kaloo mahadnaqayaa cid alla ciddii ka soo shaqaysay ee barnaamijkan soo abaabushay ee maskaxda badan iyo maalka badan ku soo bixisay inta yani ay dharar leegtahay ama kiiloomitir ay tahay ilaa Sacuudiga ee halkaas soo waday ee dadkan u keentay. waxaanu raalli ka nahay cid kasta oo horumar iyo taakulo iyo caawimo u fidinaysa shacabweynaha gobolka Sool.